rag badan ayaa ka sheegta waayahan inay ka gaabiyeen xagga raaxinta xaasaskooda, laakiin halkan waxaan kaaga soo gudbinaynaa arrimo aad awoodi kartid qancinta xaaskaaga. Haddaba raaxo sariireed degdegta oo socota waqti gaaban isla markaana dhammaad wax nah ah ay leedahay ma leh. Labada qof ee raaxadaas u wada qaadanayana ma helayaan qanac dhammaystiran. Haddaba haddii aad si fiican u dhageystid qodobadan isla markaana aad si wanaagsan u fulisid, waxaa hubaal ah in aad gaaraysid raaxo dhammaystiran isla markaana ay noloshiina lamaane ahaan ay wax weyn iska bedelayaan, gurigana ay ku soo kordhayaan farxad iyo nashaad dheeraad ah. Siyaabaha la iskugu diyaariyo sariirta oo dhammaystiran ayaan idiin soo gudbinaynaa. Ka bogo oo meel mari arrimahan aan idiin soo gudbin doono. Haddaba sidee la iskugu diyaarshaa habeenka aad rabtid in aad u raaxaysid ama aad la qaadatid waqti xusuus mudan saaxiibta? Waa in aad nasataa maalinta ka horeysa adigoo seexanaya hurdo aan laga dhexgelin, kuna seexanaya shayga ugu raaxada badan ee aad heli kartid, isla markaana seexanaya meel shanqar iyo buuqay dheer, darajada kulaylkeeduna uu yahay mid aad u dhexdhexaad ah. Qaado cunto wanaagsan oo u badan mid nafaqo leh, adigoo iska ilaalinaya in aad dareentid gaajo, isla markaana cab sharaab uu ku badan yahay vitamin C, isla markaasna jirkaaga ka uumi baaxa. Galabtii markii la gaaro gal hagaajinta iyo nadiifinta jirkaaga adiga oo ka bilaabaya ilkahaaga kuna xijinaya jirka intiisa kale. Ku qabayso biyo aad u kululayn, sidoo kale isticmaal waxyaalaha jirka lagu nadiifiyo sida saabuun, shaambo iyo wixii la mid ah. Ha iloobin in aad cuntid waxyaalo cunto fudud ah oo u badan khudaar iyo hal koob oo qaxwo ah. Maqribka marka la gaaro qaado casho wanaagsan. Haddaad ninka tahay guriga agagaarkiisa iska leerso, haddaad gabadh tahay markaas waxaa ku yaala shaqo aad u fara badan. Qabays gaaban qaado, kadibna sariirtaada ama qolkaaga iska sii tag adiga oo udug aad u soo sareeya isticmaalaya, isla markaana ku mashquulaya kala bixinta jirkaaga iyo timahaaga. Cishaha marka la gaaro u diyaar garooba labadiinuba raaxada, iyadoo ay mid waliba kan kale ku caawinaya in jawiga uu noqdo mid laga damacsan yahay in laga gaaro raaxo dhammaystiran. Ciyaarta markaad bilowdid ha ku degdegin in aad isla markiiba labada geed afka isku gelisaan ee ka hor mariya baashaal iyo sheeko wadnaha taabanaysa muddo qiyaas ahaan 60 daqiiqo ah. Haddaad fulisid qodobadan waxaan kuu hubnaa in ay halkaas ka abuurmayso raaxo muddo socota iyo farxad waarta. Waxaana arkaysaa in kala fogaanshaha adi iyo xaaskaaga ay meesha ka baxayaan, waxaana hubaal ah in aad iska daynaysaan wax dambe oo maseer ah. Haddii aad arrintan ka heshay leeg, haddii aad ku faraxday sheer, haddii ay ku qancisay comedy.